السلام عليكم أصحاب الشرف لي ما أنتوا حندوني أنا واحد نكبر الدواوين كله يقان أنتي فانجلز والدواوين لو استعمال الدواوين تا إنفكشن هذا أي كيرن المعركة هذا لو يقان فانجاي دواوين كا وسوكو بدون صدق قيود أيان وقرب حندونا إن شاء الله قيبتكو بدو حويان كله يقان بولينز أنتي فانجل أجنس بولينز أنتي فانجل أجنس وحكمي ده داوود لو يقان نستاتين oo la siiyo ilmaha cabeebka qabo oo kale afka laga mariyo Nystatin waa daawo afar waqti la qaato oo loo isticmaalo cabeebka ama oral candidiasis sidoo kale ayadoo kaniinin waa la helaa ayadoo waxa la helaa goojo ah waxa kale oo jira mid loo yaqaan benzoic acid inta badan lama isticmaalo laakiin daawada loo yaqaan whitefield ingredients keeda ku jiro benzoic acid sababta loo isticmaalina وإن أي تهي دواء توكسيك أو شركة خطر وكيني كرتو هذه اللي استعماله سيدا وكلا واحد ترتمد سدحات أو لو يقان أنفترزين بي أو أي فيا إنت بدن تلاقي اللي قليو أو لسيكلي سيفيا فانجل إنفكشن واحد لسيا قف قبا فانجل إنفكشن آدي أدو ضرب قف كرا لما سيو مركا بولينز أنتي فانجلز وسدح دان يكسو كوبينا مدوغو هريسو waa Nystatin oo la siiyo cabeebka oo kale benzoic acid oo ku jirta daawada whitefield qawti cambaarta loo marsado ingredients keeda ku jiro ama waxyaalo qaybka ah mid saddexaad waa amphotericin B oo ah daawo IV ah lana siiyo dadka qaba severe fungal infection waxaan ka wadnaa fungal infection aad iyo aad u daran tusaale qof qaba cryptococcal meningitis oo ah infection fungi ah oo galo meningiska ama dahaarka maskaxda marka amphotericin B sidoo kale waa daawo khatar ah oo qofka doosier baa la siiyaa half life keedana waa ilaa 15 ilaa 24 maalmood waa 15 maalmood ilaa 24 maalmood marka waa maalmo badan waxa dhan waa half life oo inta ay jirka ka soo baxaysa kala bar marka waa daawo sida khatar waa Polins antifungals inta badan ayagoo IV lama helo inta aan ka ahayn amphotericin B sababtana waa inay yihiin daawooyin sun ah oo jirka dhibaateyn kara oo nephrotoxic ah haddii la isticmaalo marka waa ka kaliya waxa la isticmaalaa hadda IV ahaan loo isticmaalaa amphotericin B benzoic acidna wuxuu ku jiraa ingredient ahaan wuxuu ugu jiraa daawooyinka loo yaqaano daawooyinka sida whitefield oo kale Nystatin waa goojo ahaan iyadoo kaniinin waa la helaa laakiin ayadoo cirbad lama helo because it is toxic waxaan u gudbaynaa marka groupka koowaad waxaan ku soo koobaynaa Polins antifungals baa la yiraahdaa saddexda ayayna ka kooban tahay groupka labaad baan u gudbaynaa waa group loo yaqaan azoles waxa loo kala bixiyaa imidazole iyo triazoles imidazole baan soo gudbaynaa imidazole waxa qayb ka ah clotrimazole ketoconazole miconazole tusaale clotrimazole waxa la helaa ayadoo kaniini ah iyo ayadoo boomaato ah waxaana la siiyaa dadka qawdka qaba dadka cambaarta qaba ketoconazole waxa la helaa ayadoo kaniini ah iyo ayadoo boomaato ah sidoo kale qawdka iyo cambaaraha waxyaalahaas loo isticmaalaa okay miconazole waxa la helaa ayadoo boomaato ah iyo ayadoo gel ah oo la mariyo cabeebka haddii aan ku soo laabto clotrimazole waxa la helaa asagoo pessaris ah oo la siiyo gabdhaha qabo vaginal candidiasis cabeebka ku dhaco vaginaga 6 habeen ayaana la isticmaaliyaa wuxuu wataa applicator bahal oo alaab maarti meesha lagu gelinayo oo xubnaha taranka marka wuxuu wataa macnaha asaga alaabtii xubnaha taranka lagu gelin lahaa asaga wataba marka 6 habeen ayaana la isticmaaliyaa oo ay gabadh isticmaalaysa daawada waa pessaris waayahay waxaan u gudbaynaa marka triazoles waxa kamid ah fluconazole iyo itraconazole daawooyinka azoles saddexdan ayaa looga isticmaal badan yahay daawooyinka azoles loo yaqaan azoles waxa saddexdan ayaa looga isticmaal badan yahay groupka saddexaad ee aan u gudbayno waxa weeyaan miscellaneous waa kuwa aan group lahayn macnaheedu macnaheedu waa kaligood waxa kamid ah tapinafin oo 250 mg grizofulfin oo 125 la helo oo caruurta ah 250 oo dadka waaweyn ilaa 550 baa la helaa grizofulfin
grisofulvin inta badan cambaarta ayaa loo isticmaali karaa inta badan tapinafin sidoo kale qawidka cambaaraha waxyaalaha uu daaweeyaa tapinafin waxaa la rabaa in laga taxadiro dadka qabaan renal insufficiency ama kelyahooda ay wax ka qaldan yihiin waa in aad iyo aad looga taxadiraa masiba aanan la siin waa mahadsantihiin follow my TikTok, subscribe to my YouTube channel halila socdo